waxaa maanta ay taariikhdu tahay 3 bisha 12aad 2021 waxaan joognaa afaafka hore ee saldhigga Waaberi waxaan rabnaa inaan warbixin kooban idinka siino kiiskii xalay ka dhacay isgooska dabka xalay oo ay taariikhdu ahayd 2 bisha 12aad 2021 abaaro 2 saac iyo 45 daqiiqo waxaa isgooska dabka lagu dilay gabar iyo wiil walaalo ah oo saarnaa mooto bajaaj sida ay cadeeyeen marqaatiyaal joogay goobta waxaa rasaas isgooska oo jaam ahaa si uu jaamka isaga qaado rasaas wujiyay gaari oo ku buufsanaa sida ay cadeeyeen marqaatiga kalarka xoogga dalka Soomaaliyeed goobta waxaa ku dhintay wiilkii gabadha walaalaha ah rasaastii uu riday gaarigaas sida ay marqaatiyaashu cadeeyeen gaariga wuxuu u degtay dhanka isgooska Bakaaraha xalay 2 saac iyo 45 daqiiqo markii kiiskan dhacay ilaa saacadan aan joogno wuxuu ciidanka booliiska Soomaaliyeed u kuurgalay sidii xogta dhabta ah ee gaarigaas cidii lahayd iyo goobta uu ka tirsanaa iyo meesha uu ka yimid loo heli lahaa hoggaanka baarista dambiyada CID ayaana gacanta ku haya oo ilaa hadda galkeedii u furan yahay waxaana laga heli karaa cadeymaha goobta falku ka dhacay kaamirooyinka ku xiran isgooska oo ay maamulaan hay'adaha amniga oo goordhow ina soo gaari doona marka waxaan cadeynaynaa kiiskaas oo ay dhibanayaal ka yihiin ehelka garbahayaga taagan inuu dhacay 2 saac iyo 45 daqiiqo wiilkii gabadha geeriyoodeen ay saarnaayeen mooto bajaaj markii xabaddu ay ku dhacdayna cabsi darteed mootadii uu la cararay caruurtii oo meed ah gaariga rasaasta huwiyey waxaa la cadeynayaa inuu ahaa nooca cabdibilaha laba shirleyda ah sida marqaatiyaasha ama ganacsatada goobta dabka ku sugneedna ay cadeeyeen kuna buufsanaa kalarka xoogga dalka Soomaaliyeed guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan u cadeynaynaa inaan ka xunnahay arrinta xalay goobtaas ka dhacday waxaan uga tacsiyeynaa guud ahaan eheladii qaraabadii ay ka geeriyoodeen labada caruur ah oo garbahayaga taagan waa ka xunnahay waxaana sida ugu dhaqsiyaha badan haddii aan nahay booliiska Soomaaliyeed u soo saari doonaa kiiskaas iyo dhammaadkiisa waan idinla socodsiin doonaa